So, five black Somali officers are suing the Ottawa Police Services. shan nin oo Soomaali booliis ah oo Canada booliiska ah waa state booliiska la dhahaa waa OPP Ontario Professional Police waaye waxay ka shaqeynayeen hal station oo ku yaala Ottawa aniga saan u arko different way aan u arkaa case-kan this lawsuit case should be $20 million 20 million waaye because nimankan dalashooda dhan lagu dheeray because of corruption waaye tan corruption is so gelay racism is so gelay discrimination is so gelay and unfair working condition is so gelay unfair job assignment is so gelay waxa soo dhan soo gelay nimankan inta ay maxkamadda aan looga soo qaadin hoose niman cadaan u tasteen sheekadan waxa ka dambeeyay uu ninka station kaas haysta nimankan inuu isu dhaafiyo rabay boosaskoodan wuxuu rabay inuu niman kale cadaan siiyo this is the real case my friend qofkan markuu booliis yahay oo la rabo in shaqadii laga qaado way hoos kama shaqeyn ninkan don't come tomorrow lama dhigi karo ninkan waa legal procedure in loo maraa si shaqada looga qaado a police officer don't come tomorrow lama dhigi karo he work for the government waa security agent waa niman nabadeynta iyo nabadgelyada waddanka hagaajiyo waaye oo dambiilaha la dagaalama they fight with criminals marka ragga noocaan oo kale ah and don't come tomorrow lama dhigi karo they cannot be suspended si boosaska looga qaado these guys to be suspended oo criminal looga dhigo cabaara la daba socday say u shaqeeyaan cadaadis badan baa la saaraa laga yaabaa waxyaalo badan ay qarinayaan ama ay fahmaynin baa jira oo meeshan ka socday markii dambi lagu waayey waxaa la dhahaa nimankan waa tapping aan ku samayno telefoonadooda iyo guryahooda meel kasta aan ka dhagaysano waxay samaynayaan aan la socono dhaqdhaqaaqooda si loogu helo dembi yaroo intaa la eego lagu xiro shaqadana looga qaado wax kale maaha my friend nimankan in la xiro oo cimri xir laga dhigo shaqadan laga qaataa la rabay si shaqadan qof kale loo siiyo oo caddaan ah this is the real case waxaan qarinayna meeshaan ma yaala my friend 500k is nothing dhibka loo geystaa ka weyn 500k 2.5 ay dalbadeen this lawsuit waa 20 million way 5 billion nimankan and psychological damage la gaarsiiyey ma garad khatar way in gurigaada nin adigoo kale intuu camera ku xirto adiga islaantaada is afuufayo uu fiirsado dambi way my friend nimankan haddii laga shakisan yahay maxaa booliis loo qoro markii hore the main problem oo hadda nimankan la rabay in lagu sameeyo waxay ahayd in dambi loo yeelo oo la xiro waddamadan aan joogno dambi qofka looma yeeli karo solid evidence aa loo baahan yahay wax muuqda itaabsii waaye hebel saan uu sameeyey iyo xabaduu tuuray iyo xabaduu riday iyo darbiguu ka booday iyo ma jirto solid evidence baa la rabaa to prosecute those guys shaqadana looga xiro shaqadana looga qaado la xiro laakiin nimankan niman daacada masaakiin oo iska shaqaystay ahaayeen and there is a lot of device oo lagu baaro in waa tabin lagu sameeyo you know telefonkaada qaab looga fiiriyaa jira guriga and waa la fiiriyaa alaab qalab lagu fiiriyaa jira in guriga lagu camera lagu xiray iyo voice recording and waxaas anaga hadda kama hadlayno that's a part of investigation police investigation waxyaalo badan soo galay waa tabika waa one of the police investigation way oo qofka lagu sameeyo waa tabin waa qof wax lagu waayay kharash badan way hadda aragto qof waa tabin lagu sameeyo waa qof dambi weyn looga shakisan yahay oo wax cadaan ahna lagu haynin way wax cadna lagu maayo marka wixii baa la raadinaya meel kasta way ka fiirinayaan meel kasta wax way ku xirayaan meel kasta wax way ku xirayaan marka these guys dambi waa lagu waayay and this lawsuit suitkan waa 20 million way nin kasta waa inuu 5 million la siiyo way because raga hadda rag shaqaysan kara ma aha rag police officers ahaa way oo waddanka xil weyn u hayay oo laga dhigay niman tuuga sumcad ahaana waa loo dilay dad ahaana waa loo dilay these are not only those guys ma all Somali community qusaynaysa
arrintan waa fadeexad xun oo loo geystay Somali community in North America way wax intii la fiirsado la seetay karama this type of violation kan ay dhaqan xumidan ay dadka dawladdu u geysatay khatar way hawsarada dhabarkan laga taama jiro don't come tomorrow for no reason hadda waxay gaartay booliskii iyo dadkii dawladdu u shaqeynayay in dambi loo raadiyo shaqada lagaga tiro la xiro ha fiirin way tabinkan iyo investigation kan qofkan dambigii lagu rabay dambi weyn u ahaa in sumcadiisa la baabiyo oo jeel 100 riyaas la xiray ay rabeen booskana ay ka qaataan mar dambana black society aan shaqo la siinin this was the case my friend kan waa dambi laga galay ummadda Soomaaliyeed way all black society dambigan laga galay nimankan waxaa loo taageer garay race as a racism way because of their color and in meesha laga qaada la rabay oo niman kale la keeno waxaa laga yaabaa nimankan cadaalad badan inay hortaagnaayeen cases badan booliska ka dhaca nimankan booliska waxay ku heshiinayaan wixii ay sameynayaan kulli iyaga meesha jooga qofka madow si xun oo la dhaqmayaan my friend say kula dhaqmayaan hatta markuu ku imaado soo kula hadlaya will never make you comfortable my friend what are you saying baan dhahaa in markaas you know waa dareemaysaa qofkan inuu ku doondoonanayo inuu ku durdurayo waa garanaysaa inuu dambi ku raadinayo waa garanaysaa police officer-kan markuu ku imaado handadaad iyo sitaan iyo si xun oo liiditaan uu kula hadlo bilaabaya qofka adaanka markuu u tagaana si fiican u salaamaya you know hadda kor bay tigid buu siiyey meel buu ku jiraa dadka dhan buu urursanay waa leexsanay anigana isagoo dadka leexinaya meesha anaba ay leexsaday markuu ii imaado gaari karo cadaan leeyahay iga daa'imaado ma ninka istaajiba ani hay istaajin ninkaas la hadal my friend adaan kurd ani marka ii imaanaysa ninkaas ay haysataa iri maxaa ani hadda ii istaajin please stop this guy you been recorded buu dhahay yes this will go to court baan dhahay why you discriminate me that guy you don't stop you stop me why shakadii tiidku isata hawada wala tuuray magarad marka waxa ka socda wadankan everywhere in this world some sort of racism and discrimination ayala goobaha shaqada ka daran waxay ku qoraan no discrimination no this no that but dhabarkii ka taabanayaan my friend don't come tomorrow alugulay don't come tomorrow alugulay Soomaalida kulli minna don't come tomorrow ma jirto shaqadiina way socotaa why I don't come tomorrow shaqadii baa yaraataa alugulay shaqa ma yaraanin inuu iga daadheesh no don't come tomorrow وكر agency وعين please don't send that guy marka cadaalad baa loo baahan yahay adduunka dad rag cadaalad ka hadla loo baahan yahay my friend nimankan loo suudkooda not 500k ma waa 5 million 20 million loo suud baalkan marka sorry baan leeyahay dadka aad la shaqeynaysaana waa inaad ogaataan qaabka idin la dhaqmayaan